بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله walaalyaal waxaan eegaynaa culimadatan waxay fiirinayaan guryaha ay ku jiraan quraanjada togga ama waadiga ay degan yihiin maadadan idinka arkaysaan waxa weey maada aluminum waa birtaas waxa lagu shubay meeshii waadigii ay deganaayeen quraanjadu aluminum way kulushahay waxay galaysaa dhulka hoose ama waxay u daadegaysaa qolkii iyo guryihii iyo dabaqyadii ay ku joogtay quraanjadu halka markay gasho quraanjo badan kulli way ku dhimanaysaa laakiin sababta research-kan loo sameeyo waxa weeye in la ogaado guryaha ay ku jiraan quraanjadu markay qabowdo iminka way qabowdo macdantii aluminum tahay wala kala ciidii ba laga saaraya meeshii marka waan qodaynaa si loo eego dhererkiisa ama inta guryaheedu inta ay leeyihiin waatan wada jeedaan in la qodayo iminka waad aragtaan marka guryaha ay degan tahay subhanallah inta ay leegtahay bal u fiirso subhanaka rabbi allahna waxa uu ku tilmaamay quraankiisa hatta ida ataw ala wadi naml markii ay yimaadeen Sulaymaan iyo ciidankiisii oo ka koobnaa jin iyo insi iyo shimbiro markay yimaadeen toggii quraanjada waa kan guryaha ay ku jireen marka bal u fiirso marka inta uu leeg tahay ay ku jirto waliba kuwani waa quraanjo toggeedu aad u yar yahay qaar baa ay aad iyo aad u farabadan uu aad u weyn yahay subhanallah inta leegtay marka si aynu ogaano biyo ayaan ku shubaynaa si ay dhoobadaas iyo godadkaas ay uga baxaan si aanu aragno qolalkii iyo dabaqyadii ay ku jireen subhanallah quraanjooyinkaas marka imika ma waan u jeednaa bal u fiirso dabaqyadii ay ku jiraan subhanaka rabb hatta bini aadamka caadiga ah ayaan guryo noocaas aan dhisanin guryaha ay ku jiraan bal u fiirso wadooyinka ay leeyihiin subhanallah waa wax la yaab waa mucjis weey subhanaka rabb waa wax la yaab weey subhanaka rabb